daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan Faafiye Show asbuucan waxaan idin program ku saabsan haasawaha ama shukaansiga cusub ee dhexmara labada qof aan isku meel ka joogin waa xiriirka nooca loo yaqaan long distance relationship marmar ayaa waxa dhacda laba qof oo laga yaabo inay kala joogaan laba qaaradood mise laba magaalo inuu dhexmaro xiriir jecel arintaas ayaan caawa ka hadli doonaa waxa programka la daadihinaya MBJ Maxamed Bile Bashka iyo Abdulfatah waxaad ku soo dhawaataan Faafiye Show. Thank you, brother. Thank you. All right, thanks guys for being here. First question. waxaan weydiinayaa Maxamed Bile maxay kula tahay arintaas mas'aladaha jaceelka noocaas ama xiriirka noocaas inay labadaas qof ka keenayaan wax faa'iido ah horta waan salaam kulligiin good to be here horta xiriirka noocaas aniyo xiriir jiro waay dad badan oo caalam ka midna waa isticmaalaan waana wax shaqeeya dad baa arkaysa isguursaday ilmo ka dhalay jacayl abuuray ayagoo qarada kala jooga iskuna imaaday marka arrin jirto waaye qofkii against kana waa dunihiisa qof kale aan waxaan leeyahay waa arrin oo markin oo nolosha ka mid ah thanks for your point so waxaad leedahay waxaad aaminsan tahay inuu xiriirka noocaas shaqeeyo aad iyo aad all right thank you Bashka arrintaas adigu maxaad ka leedahay aniga arrintaas waxaan ka qabaa arrin shaqeynaysa maahan arrin oo mataqaanaa soconaysa ma ahan taaganaanay marka Soomaalidu waxay dhahan busta ka fog iyo qof ka fog labadooda dhaxan ka macaliyaan so yani qofkaas ka fog wax oo faa'iido uu ku hayo mise ma garanaysaa inaad xiriir la bilowdo wax lagama yaabo okay lagama yaabo wax yar aan ka dhex galo busta ka fog markii maamada la keenayay horta hadii aan ku sii joogno dhaqankii hore ama aan wixii hore aan ku dhaganaano sax markana waxa meel ma gaarino hadii laga hadda new waxa jira horta waa la kala caan baxay waxa jira digital relationship wax loo sax qof walba telefoon wataa markana xiriir nooc kala soo baxay marka ma la dhigi karo meesha hore aan ku dhaganaanayno xiriirkaas wax shaqeynaa ma so Bashka pointigiisa wuxuu ahaa busta fog dhaxan ka macaliyo waa soo noqon doonaa arintaas Abdulfatah maxay kula tahay adigu waxa la raacsanahay maxaa bile horta kuwii shaqeeyaan iyo Bashkana waa la raacsanahay kuwana ma shaqeeyaan labadooda aan dhaxdhaxadka ah kuwa shaqeynaa waa arkay kuwa shaqeynaa waa arkay sida Bashka sheegay waa wii jiraan okay maxaa bilna wuxuu sheegayna wii jiraan laakiin adiga ahaan hadii maanta lagu weydiiyo xiriir long distance haduu ku soo maro aan wiliga ma soo marin ma yani waxaan ka wadaa haduu adiga jaaniska mise calafka uu kula galo xiriir long distance ma sameyn lahayd oo yani lagu la gal lahayd mise waad waxa dhiileednay arintaas ma yaan waa tijaabin lahaa wuxuu taagan waa tijaabin okay waagart mid su'aasha labaad waxa weeye I will ask you guys saddexdeena watan maxamed Bile adiga ma ku soo maray wax xiriir long distance waliga aniga xiriir long distance ila hadda ma soo marin laakiin dhalinyaro badan soo maraa qaana waa asxaabtaada okay oo markina maantadan happy ku ah guursada ma leedahay wani milyan ka hadlaaya ninka soo xiriirkii oo ma garanaysaa intay dadkiis barteen oo shaqeysteen ayoo kala qaarada ay ku joogay waxa ka hadlaysaa xiriirka moogtay asoo dad waxa arkaysa halkan joogo oo Afrika u tagay gabar waligiis arkeen laakiin wuxuu ku bartay xiriirkan internet wuxuu ka bartay Facebook ama whatever uu isticmaalay ma horta aaladaha ma garanaysaa internetka iyo technology-gan hormaray dhib yaray laba qof oo intaas oo kuna maal isku jira inay ma garanaysaa day to day life ee caad u sheekaystaan waa la ogyahay laakiin adiga Bashka ma ku soo maray xiriir noocaas aniga xiriir waa soo maray sax waagart what was the resultigu wuxuu ahaa gabar aan isbaranay Norway joogtay waagart gabadha maartay gabar aad u qurux badan ee u Soomaali ah waagart waa sheekaysan waxaan ku rabaayo hada sheekadana u socotay marka dambe waxaan ka wada sheekaysan jirnay baalka Skype kaliya هذا بريان على العضو الصوب حيسا شكتي ليبان قدرت تن وحجرو وتقاناي محل هذا سكايب اجرو تانج اجرو فيسبوك حتى بوكسيرو لو شاكيسن كرو وحب وحلين هذا فايبر كي حتى وحويش هذا فيس تايم وحل اجرو سو قبل waxa ka sheekaysan jirnay Skype صح Skype san u sheekaysanayna alda wax ku dhaabayo bal kaamirada gadaal uga saka waxyar xogaa dib ugu dig intaan la arkaa maalul moogta inta qurux ay ka tahay qurux af qurux badan indha qurux badan waji qurux ma sha Allah kaamirada dib ugu digatay kaamirada waxaan ku gadaal waxyar uga saka inaan ku arkaa rabaa jirkaaga kale markay sakatad waa suuxi gaarayniyo
وضعنا ما سوى عودان واحد عيني باش قربوها وين يلتي لو غير حقيقينا انا قربوها وين راس المانديلا يعني naag isku toosnaan leedahay waa iska qaadan lahaa hada marka arintii sawirkii sida ku aragtay bis gabadhaad meesha iska baratay sida ku aragtay ma ahayn wax ka dhixiyada ha واقرت اي عبد الفتاح adigu see kula tahay have you ever been in a long distance or will you ever be in a long distance ana horta wiiligay ma igu dhicin hadii igu dhacdana Soomaa ma tijaabina arka meesha insha Allah isla gaareen xalafkayga hadii tahay ama hadii aan markaas kala ogaana واقرت okay so su'aasha labaad waxa weeye long distance relationship ma dhici kartaa inuu aakhirkiisa magaranaysa laba qof oo long distance relationship kooda jira inay aakhirkooda inay isjeclaadaan can it lead to people falling in love could you fall in love with somebody at long distance ku baratay ma dhici kartaa way dhici kartaa ani waxa taaganaa ma dhici karto maxaa dhacay horta 1 in a million yes 1 in a million ku dha 1 in a million qalil way laba qofood inta iska barteen cabaar la wada socdo la sheekaystay la isguursaday ilmo la isku dhaw 1 in a million hadda 1 in a million adiga waa ina Jonas raadisa waa ku duqoobaysaa meesha 1 in a million kina daa raadisid waa ku duqoobay hadda 1 in a million ka sheegaysa laftiga waa kamid ahayd adigii waxa ka soo qaaday halka gabar ku xumeysay nin walbina ku xumaatay ayada fool xumay inta ay ka xumeyd bas laakiin gabar walba ma aha hadda 1 in a million ka sheegaysa adiga kamid ah laftiga saaxiibkay ku dhacday hadana Ohio iska barteen waa kan Mareykanka dhaxdiisa ku dhacay Ohio sawir waxa jira Photoshop yes sawir gabar kale isticmaashay oo quruxo badan oo dhax yar oo qalanjo aan fahmino ninkii sawirkii uu qaatay lacag Suuriya hore uu qaatay guri markuu gargaraacay iga way ka furtay hooyo fiicanta qeyr hebel aan leedahay gabadhaada u mid ya gabadheeda heblaay ma u timidha gabadhaada waa guursanay oo taagan yahay واقرت hay heblaay soo degbal war 500 pound soo degatay 500 pound sawirkii aan ahayn janjariya gritay dig ma hanu dhaay gabadhan rabaa ani gabadhan sawirkaan rabaa waxay tan iima joogtay tan ii joogtay dhad ninka lacagtiisu wixii soo duubtay oo dhamma salaam wadii soo noqona ilaa hadda waa noqonaya واقرت marka waxa leedahay arinta koowaad yani reason koowaad oo leedahay long distance relationship ma shaqeeyo waxa weeye taalinta qofkan oo aamin kartid waa yes aamintan ma jirabo واقرت ha ad relationship aamin kaliya hadda waxaan ka hadlaynaa waa relationship ma sameyn kartaa oo la dhisay haddii la dhawr relationship waa sameyn karnaa aaminitaanka qofka adag keensan kara laakiin hadda gabaran ku degdegaya oo ma arkin oo shalay maanta bartay online ka bartay oo waa aamin alcaan qaadana Suuriyan geesana adaa meel cil isku wado meeshan aan waxa ka wadaa niyo liibaan soo sheegay long distance marka gabadha isbartaan waa gabadha waa la sheekaystay time ay gelisay lacaga gelinay lacaga gelinaysa lacaga u diraysa qof gaajeysan ama Afrika jooga ama Yurub jooga ma fahamtay lacaga gelisay time ay gelisay naag ayadoo qiilays baby fiican way qiilaysa ninkii u shaleeda baby wallahi I miss you ninkana ag fadhisaa واقرت what kind of relationship is that wow مودا يقلنا قاد بيراعس نوصل قبل هذا كمان نقول رباقات كله بيراعس وعرفت فيديو واقرت so main reason ka bashka adiga saada قبل درس كاراتسو تو درس كلا okay bashka ta ka dhaxgalo main reason ka daa u leedahay waxa weeye long distance shaqay waxa taagan tahay qofkan maba aamini kartid ba it's all about trust سيكو آمنة yeah سيكو آمنة Photoshop ما آمنة 3D وبريان ما Photoshop مثلا let's say حتى قفكي هدي adigu qaab ahaanteeda aad ka heshay let's say arinta sheegayso kugu dhacday kuma sadcin oo ah qoftii inay qof kale u ekaatay haddii qofkaas uu noqdo qof caad uga heshay waxa taagantahay marka simply because qofkaas uu ka fog yahay ma aamini kartid soo dhaqmo ma dhaqan ahaantiisa mise magaraysa maahan ta adiga sheegtay qofkii ma la aamini kar leeyina waa loo aamini karin inta ka duushay Nairobi aad tagtay qofkii soo aragtay hay aba Ethiopia aad tagtay hay aba fiicanta gabadha qurux badan ta gabar qurux badan way okay bila u bilawday labisi gaari qurux badan iyo guri qurux badan ay degtay qofka naflay way adigu ka fogtaa Mareykan joogta 1000 Soomaaliya joogta agta markii gaari qurux badan ku socdo guri iyo waxay cuntaysto waxa koowaad niyadeeda ku soo dhacayso waxay tahay Abdi Fatah arkayo wallahi gabadhan waa isku dhacaysa ma sha Allah iska dhaqan uu ku aqrina ma yeedhaado way diiday Sooma ana ku aqrina ba ina ku shukaansada raba gabar qurux badanaata ma loo qaba wali single waa marna qabtid mugta relationship la idinka dhaxay gabadhi way diiday qasab waa maxan bilinaya gabadhaas واقرت dhahdo okay shukaansado bilka diraysa markaas ah ka cunaya marka abuu muruq guduud
waxaaga wax ka cunaya arrintu marka waxay ku fiican tahay labada qof la isku meel joogaan oo thank you yes meel aniga ka arkar haddayba jooga naagbaba amniyo hay dhaafto MBJ maxamed waxaa leedahay aniga waxaan leeyahay horta baska miduu sheegaya waa macquul waaye oo aaminkii meesha u imaanaya qofka maadaama aad kala fogtiin you don't know wuxuu ku sugan yahay xaaladiisa wixii aad telefoon ku maqasho keliya aad ma arkin oo aaminaysaa laakiin waxaa lahay hal qof ma qurmin karo society gabdhaheena dhan ya hal qof haddii waxaas ku dhacday maaha inaa ma arkin anaga dhinac ka dhigno gabdhihii kulligood sidii ay sameeyaan oo jamcino iyo dhalinyaradii haddii laakiin ma arkin qofkan ay ku dhaco qofkan waa ma arkin nasiibkiisa xumaa hal qof kaliya kuma qof kale baa nasiibkiisa xumaa laakiin way dhacdaa adiga saa u aragtaan waa saaxiibkii ku dhacday xaguu tagay meeru la soo sameeyay everything meher xalaal la soo sameeyay ku dhac waraani walaalkii qabaan ku dhahay soo ma qabo anna mid kale ku sheega saaxiibkii soo guursadaa ku dhac meher u soo sameeyay everything markii soo duushay airport flower albaabka la taagay miskiinka exit 22D oo rabo inay ka soo degto exit 23D aba laga baxay kala la raacayo thank you fiirhe qof walba nasiibkiisa waay thank you ma aha laakiin ina wixii dhan jamcino ma aha gabar fiican way jirtaa gabar xun way jirtaa wiil fiican wuu jiraa wiil xun wuu jiraa ninkan xaasla waa adiga yaa lagu gaadinayo abaniga mal igaadaye calafkeyga meeshu yahaa thank you calafkaaga sugan laakiin yaa lagu gaadin gaaditaan aaminitaan ma jiro liibaan haddaan kuu sheegaa liibaan aaminitaan ma jiro maya liibano naagahii lama aamini karo adu waa soo guwatay lama aamini karo ada fiir hal mar adii aboolaas adiga laakiin horta MBJ wuxuu yiraahdo waa shaqayn kartaa waa laga yaabaa bashka waba soo martay wuxuu tagay lagamaba yaabo inuu xataa isku dayo adiga pointigaaga caadiga muxuu yahay yani long distance relationship maxaa ka aaminsantahay أنا waxaa ka aaminsan qof horta calafkiisa duuya uu shaqeynaayo iyo wax kasta horta waxa waaye waxa sheegta aaminaad horta meesha hore la dhigaa qofkaas hadaa aamintid abo guri shakadiina ku socon kartaa laakiin qofka hadaa aaminen ma ilaa labadiina aadaysinba male shaqada baska camal ugu dhacay xabadkaan ku aqrinayaa leeyahay Ameerika jooga kooda quudkan macalinkan biilkan uu soo diraa everything Ameerika markaan tagana wallahi waa gooynaano يا لكذا wax dhaca laakiin ma kulligood ma lama jimcin karo daacad warweyn dhama daacad wax la ma jirto nimayo hal iyo laba lama xisaabi karo hal iyo laba horta hal iyo laba gabadha yaayada gadaa way xaq u leedahay wiilkiina ka gado oo dariskiisa inay guursato jaagarta markaas wax calaf leedahay annaga Afrika joogna Ameerika niman jooga ku haamiyaan in iska daayaan aba leey qaataani way like very calaf wax leedahay jiro ma fahmin calafka niyo gabadha hilib ma og meesha kula galay صح وليبان waxaan ku dhahay hadda meel hadalka kaaga soo dhameeyay waxa la dhahay naagta shaqaynsanaysa waxa la kadaloob kasnaageed waa kadaloob rageedo kaaga dambeeyay kasnaageedan ku dhaaq aqliga naaga amaaragt waa kadaloob rageedo kaaga dambeeyay nimanka xaq joogan aa ku aqrinayaan adee Mareykanka shifti tumo hilib aa jaraysaa hilib bir hilib la dhacaysaa chicken iyo balaay qaraysaa doorka $100 wax ka doonaysaa $100 ay u diraysaa abo naka dambeeyo shaqaamino intuu subax soo kaco gaduudan dhaxda Nairobi dhaxda intuu ku soo xirto kaba soo casaysto wala abana keendeeda aadayna $1,000 dheer lagu aadaya saaxib so be careful qofs la ogeey wallahi way dhacdaa laakiin jamaca wallahi ma jiraniyo sheekada way wara bashka aaminkiya oo kalsoonida ka maqan hadda qof kalsooni aad ku qabin ashukansatidna qof walba sidii u maleynaysaa laakiin waxa bashka midaan waqooyiga laga sheegaa la gundaha ka fiiri waa garta laakiin hal mid aan rabo meesha point waa ka sarniyo okay hal mid inaan point gareeno waa horta bashka dunida waa isbedeshay event صح يعني aaladahan cusub internetka ummadii yani shacabka Soomaaliyeed oo dunida meel walba kala jooga saxranaysa صح waxyaabahaas oo dhan baa waxay sababeen qofka waxa laga yaabaa dhalinyaradu qofba si way mugtay ninba wax uu ka helaa ninba laga yaabaa isagoo Minnesota joogo qoftii oo dooqiisa tahay inay Russia degan tahay صح inuu xaggaas calaf ka raadiyo dhici kartaa صح ya arintan waa arin aad hadda fiirisid I will say 70 I mean I will say at least 10% of marriage ka Soomaaliyeed waa long distance oo loo adeegsado aaladaha internetka صح is something new صح adiga marka ma kula tahay inaad xogaa dunida la yara socotid oo xogaa give it a chance ni adduunka waa la socdaa horta labadan nin saaxiibaday walaalin way la socdaan Facebook aan ku jiro ma hal mar waa ogahay mar gaadmo waa dhacday ma garanaysaa laakiin xogaa mas leedahay you need to give it a chance no maxaa dhacay waxa waa kansar ni cudurka hadduu mar faafo ma taqaanaa
xididada inuu gaarayaa ilaa iyo maskaxda meel buu gaarayaa niyo Agat. naagtaa markay aragto hebel baa biil usoo dirayba maba rabtoba kan dariskan waxbay ku haystaa interest wax interest lah jirniyo cabdifataax oo dariskeeda interest bay ku haystaa ninkan gaduudan dee baalku ka galaa habeenkii kaasna biilkuu soo diraa waa lagula leeyahay naagta waa lagula qabaa niyo keligaa ma qabtid so you gotta understand. Okay. Maya, thank you guys. kansarkaas labadiisu waxaa dhalinaya horta kalsooni la-aanta ninkan kansarka faafaya dhanba kalsoonidii faafaysa waay haddii qof kalsooni lagu qabina wax imaanaya meeshii ma laha. My good points taken. Thank you guys for being here. That concludes the show. Inshallah, daawadayaal waxaan ku kulmi doonaa episodeyada soo socda ee Fafi Show. Bashka, Mohammed Bile and Al-Fatah, thanks for being here. You're welcome, brother.